السلام عليكم أصحاب سولو هذا عاو عربين يدسوا فيديو 10 كيشرات oo kamid ah casharada ku saabsanaa Microsoft Word tutorials marka casharkeena caawa waxaan ku eegi doonaa automatic correction documentiga markaad qoraysid inuu si automatic ah wixii khalad ah kaaga dhaca uu soo saxo example hadeerto inaan qoro this oo kale ayaan rabaa inaan qoro marka sti ayada ayaa isdaba mariyay space ayaan idhi maxaan rabaa hadeer muusan sixin wali uu khaldan yahay waka khadka casword ka mariyay khadka casad hoos ka mariyo macnaha ereyga uu khaldan yahay dugid buluuga ka mariyana macnaha grammatical ahaan waxba ka yara khaldan laakiin ereygu waa saxan yahay spelling ahaan qowda marka hadeerto marka saas oo kale soo daba mariyo waxaan rabaa markaan space dhaho inuu saxo marka saas oo kale sidee u sameyn kartaa automatic correction waxaa u sameyn kartaa waxaad tegaysaa file dadina waxaad tegaysaa options markaastii waxaa ku soo boodaysaa dialog boxkan waxaad tegaysaa proofing side-ka xagga yaala proofing baad ku dooranaysaa dadina halkan ka dooranaysaa auto correct option baad ku dooranaysaa sida marka uu soo baxo hadda ku jirta halkan kuwan ku jirta laakiin uu sayno soo qabanay waxaad sameynaysaa halkan oo kale replace text baad ku dooranaysaa tig baad saaraysaa tig markaad saartid kuwan oo kale way ka caawinayaan iyagana tigsaa kan correct to initial capital kan oo kale labada ugu horeeya in capital ka dhigo kale waad saaran kartaa inta u baahan capitalite first letter in a sentence ka xarafka ugu horeeya aad capital ka dhigto kale iyadana waa u baahan tahay iska saaro waxyaabaha kale ka caawinaya table-ka marka qoraysid inaad days-ka iyo waxaan leeyahay iyo maalmaha inaad capital u kaaga dhigo kale kan oo kale table cell-ka inuu capital ka dhigo waxaan kale ka caawinaya laakiin ugu muhiimsan waa ka replace text kaasa ugu muhiimsan waxa soo dhan markaad tigta saartid kan saar waxa soo dhan markaad tigta saartid kan oo kale waa saari kartaa laakiin isagu waa xitaan degdega marka inaad iska dhigtid bafiican inta markaad saartid tigta saartid okay dheh kana okay dheh okay haddaan qoro waxa loo yaqaano this bar waa inaan qoro thsi baan idhi space baan ugu qoraa smartid haddaan hadda erey kala qoro advantage baan sii qor midaba advantage baan ka dhigay ge halkaas g-da ka horeysa bay ahayd markaan hadda space dhaho uu saxaya smartid uu saxaya eedina capital ka dhigay eeda capital haddaan halkan file ku noqdo oo aan option tago oo aan proofing tago oo aan halkan ku dhufto oo aan kuwan ka qaado midna hadda kan oo kale capitalize first letter of sentence haddaan ka qaado tigta waxaa laga yaabaa inuusan xarafka ugu horeeya capital ka dhigin hadda marka hore markaan advantage saa u qoro wuu saxayay soo maaha hadeerto waxba sixi maayo marka waa inaad kuwaas oo dhan tigta soo saartaa dhammaantood tigta soo wada saar kabacdi qor waxaad doontid ereygii ku soo dhaweey isaga kuu saxaya marka intaas ayaan rabaa inaan la wadaago adeeg dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.